بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن السلام يا دمانتي وحن نقول السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كبعدي عاو حن بلعبنا عشكي نكسي حقيقي أيام بلعب تونا هتلا يري عشكي نوجد بيجي وحنوسو شوقي ماش الله يقانو وأن عشكي وجود بيجي نكسو عرقني qaybahan ayaynu ku soo aragnay halkan hortiina idinka muuqda qaybtii ugu dambeysay ee uu noo soo joogay ayaynu iman doonaa insha Allah kuwan oo dhan waynu soo baranay dhammaantood waynu soo baranay qaybahan waan soo baranay horeynu soo baranay halkaas ayay noo soo joogtay oo ahayd in la riixo sida computerka marka la soo shidayo in buttonka yar ee CPU-da ay leedahay ama maskaxda computerku ay leedahay in la riixo iyo buttonka yar ee ay dhaladu leedahay ama screenka ama monitortu ay leedahay in iyadana la riixo halkaas ayay noo soo joogtay okay waxaynu ku sii xijinaynaa how to start a computer sida loo soo shido computerka ayaynu eegi doonaa caawa insha Allah computerka marka la shidayo nidaam iyo maskax ayuu u baahan yahay oo hadda hadii lagu yiraahdo xafiiska hale oo ka shaqee xafiiska lagu yiraahdo computerka isku soo rakib oo soo shid oo aad garan weydo mucjiso ka xumi ma jirto oo computerkiiba soo shidi kari weydo waa inaad taaytaanada aqoon at least waa inaad taqaanaa sida computerka loo soo shido oo waliba loo soo shido computerka maxay tahay desktopka loo yaqaano ama personal computerka laptopka bal qaatay isaga badhan yar baa la taabtaa laakiinse kan kale isaga xadhkiba la isku xidhxidhaya wax badan baa la qabanaya oo sida haddeer halkan ba ku soo socotay inuu ku baran doono marka computerka weyn ayaa la shidayaa oo aan doonaynaa inaynu shidno markaa caawa ashkeenu wuxuu leeyahay practical iyo waliba theory waana dedejin doonaa markaa waad ila soconaysaa computerkiina soo dhaweysto oo isa soo agdhigo si aan u soo wada socono markaa computerka marka doonayso inaad shido horta marka hore checking garay electric supply plug in it into electricity inay korontadu ay gudbayso oo brag ay gudbayso oo ay markaa ay soconayso shaqeynayso marka hore supply-ga iska eeg oo supply-ga waa korontadii iska eeg inay shaqeynayso hubi korontada hubi weeye inay korontadu ay ku shaqeynayso oo markaa maxay tahay dabkii uu ku joogo waa inaad dabadna xarigii aad gelisaa power supply baa la yiraahdaa xariga la gelinayo waa ka dabka gudbinaya ee computerka iyo u kala qaadaya markaa maxay tahay qaybta kale isaga markaad geliso monitortuna iyana xarig kale oo gaar ah ayay iyaduna leedahay oo iyadana gaar loogu gelinayo dabadna markaad computerkan xarigii u geliso oo aad systemka xarigii dabka aad u geliso sidoo kale monitortana aad dabka xarigii u geliso waxaad taabanaysaa bush waxaad riixaysaa power buttonka of the system unit ee systemka weyn ee dhulka yaala ee aan idin sii tusayay ama CPU-dii hadba saad u garanayso taas buttonkeeda yar ee sare qaarna dhinacu kaga yaala qaarna wuxuu kaga yaalaa dusha yar ee sare halkaas badhan laga eegaya badhankaas hoos loo riixaya oo markaas isagu shidmaya marka isagii marka systemkii baad shiday dabkii baad u gelisay dabadna buttonka yar ayaad riixday sidoo kale maxay tahay waxaad iyadana riixaysaa power buttonka ayaad bush waad riixaysaa power buttonka of the monitorkana keeda iyadana riix way dabadna select dooro user marka shaxdii baa ku soo baxaysa interface-kii hore ee maxay tahay password-kii iyo wixii baa ku soo baxaya sawirkeeda iyada waan ka xumahay halkan ma aan soo gelinin ka soo baxay doona marka laakiin waxa ku soo baxaya username-kii oo magaca password-ka marka la gelinaya ayaa soo baxaya inta marka dabadna aad samayso programka uu ku soo kacaya si toosa password-kii baad gelinaysaa waad ku xidhaysaa to turn off the computer sida hadaba aad u damiso computerka iyana waa eegaynaa intaas waxay shididii haddana waxaynu eegaynaa sida computerka aad u dansan lahayd oo aad u bakhtiisan lahayd marka computerkii oo halka isaga dhigi lahayd computerkan ku hadlayna aan isfahano waa ka desktopka weeye select waxaad dooranaysaa start menu-ga ayaa dooranaysaa marka start menu aad doorato waxaad ka sii dooranaysaa oo aad rabtaa inaad computerka damiso start menu baad ku dhufatay dabadna choose waxaad dooranaysaa turn off computer ayaad dooranaysaa hadday ku taalo meesha ama waxa ku taala shut down ayaa ku taala dooro ama turn off computer ama shut down hadba ka doonayso ayaad markaa dooranaysaa oo aad maxay tahay si aad markaa aad u damiso markaa computerkii okay
click waxaad ku siinaysaa on turn of computer again mar labaad baad turn of computer again mar labaad baad ku dhufanaysaa oo aad ku laba celinaysaa turn off kaad ku celinaysaa dadna computerkii sidaas ayuu markaa uu ku dumayaa oo markaa uu ku tegayaa CPU shutdown ayay si toos ah u damaysaa normally si caadi ah bush waxaad riixaysaa the button-ka yare of the monitor kadibna way damaysaa dhaladeena markaad saa isaga usoo damiso dhaladana button-kii yare aad markii hore ka shitay ayaad iyadana dib ugu riixaysaa markaa alright intaas waxay ahayd computerka sida loo damiyo iyadoo practical-ana oo aynu markaa eegayno meesha turn off iyo shutdown iyo waxaas ku yaalaan iyadana practical ahaan ayaynu isla caawaba aynu ku eegi doonaa insha Allah hadda markaan theory-ga dhameeyo ayaan iyadana raacsiin doonaa hadii ay restart computerka mar baa restart loo diraa dib si uu joogo dib soo shidid loo sameeyaa computerka sometimes markuu maxay tahay uu jamin uu sameeyo ka yar cuslaado oo kale ayaad restart u diraysaa marka iyadana nidaamkan ayaa la mari doonaa markaad aad sameynayso inaad computer restart aad u dirto click on the start menu start baad ku dhufanaysaa dadna waxaad dooranaysaa start ayaad dooranaysaa okay waxaad ku sii dhufanaysaa waxa loo yaqaan choose waxaad doonaysaa turn off computer dadna turn off markaad doorato ama shutdown halkaas dhibic yar bay leedahay meel yar oo la soo furo iyadana hadaynu eegi doonaa click waxa halka yar baad soo furaysaa button yar dadna button-ka yar ayaad click ku siinaysaa restart button ayaad dadna kadibna waad u diraysaa markaad si automatic ayuu dib markaa uu isu soo kicin doonaa oo isagu si toos ah uu soo kici doonaa to log off or ama go to switch user labadana ku soo baxaya switch iyo user iyo log off iyo saas ayaa ku soo baxaysa kuwaas ku soo baxaya si aad markaa uga laabato kuwan switch user iyo kuwa waxaad dooranaysaa click start baad dooranaysaa si aad dib uga noqoto ama aad okay hadaan siinayn markaa oo aad dib uga noqoto click log off hadaad tiraado hadii aad rabto markaa inaad in aad markaa maxay xidho user key oo mid kale ku aad macna aad ku jirta aad xidho ayaad log off ayaad oran doontaa insha Allah waynu isleegi doonaa practical-ka ayaa ku fahmi doontaa insha Allah switch user kuna waa hadii aad rabto markaa in aad isagoo furan key furan aad mid kale furato markaa ayaad switch dooran doontaa oo key sidiisii kuugu joogo markaa okay desktop screen-kii sidan oo kale ayuu soo kacaya computer markuu ku shidan yahay qaybtan asaas kuugu soo kacaya intan waxa la yiraahdaa waa desktop screen-kii macnaha shaashadii monitor-kii weeye halkaad ka daminayso dhalada halka badhankeeda yar halkaas uu ku jiraa oo dama muuqdo saas ayaad u markaa u daminaysaa oo aad u isticmaalaysaa kuwan waxa la yiraahdaa icons ayaa la yiraahdaa kan intan qaybtan oo caawa lixaad ka saari doonana waxa la yiraahdaa taskbar ayaa la yiraahdaa taskbar ayaa la yiraahdaa qaybta halka ku taala waxa la yiraahdaa inta hoose taskbar halkaana taasina waa start menu-gi weeye marka qaybtan waxa la yiraahdaa iyadana icons baa la yiraahdaa kuwan qaybahan halkan ku jira waxa la yiraahdaa icons ayaa la yiraahdaa oo kan ahaan ayaa loo isticmaalaya ka marka qaybtanna waa qaybta noocaas weeye okay marka tani waa shaashadii weeye markaad computer-ka shito ku soo baxaysay noocaas ayay kugu soo baxaysaa marka shaashadu shaashada markay saa kuugu soo baxdo shaashada macluumaad fara badan ayaa inoo yaala oo computerka ku saabsan desktop is the large color area on screen windows desktop is the most important features dhalada ama shaashadu computerka area-da color kalehi aad ayay windows ahaan ay ugu fiican tahay oo way wanaagsan tahay computerka computerku were hosti taskbar and the following folders taskbarka ama computer screen-ka ama shaashada dhalada waa meeshay ka muuqdaan taskbarkii iyo folderskii markaa ku yaalay computer and my document iyo recycle bin computerkii iyo my document meeshan wax ku kaydsanayay recycle bin wixii markaan dhiliido wixii aan ku soo ceshanayay iyo internet explorer-kii oo aan internet-kii iyo website-da ka galayay iyo ada kuwa kaleba ayaa ii yaala halkaas oo aan ka daalacanaya iga muuqanaya soo kale my computer-kaygu shows wuxuu i tusinayaa disk driver-kaygu i tusinayaa hardware connected to this computer ee ku xidhnaa computer-ka ayuu i tusinayaa soo kale my documentigu waxa uu my document provide a equivalent place wuxuuna siiyaa goob lagu kalsoonaan karo oo la isku halayn karo to store oo wax lagu kaydsado your document oo kamid ah documentigaaga oo documentigu waa meel lagu kalsoonaan karo wax la dhigto oo kamid ah computerka ayaa la yiraahdaa document oo casharo fara badan iyo xolba ay ku qaado
recycle binku store wuxuu kaydiyaa delete files failalka aad delete gareysay haddaad dib ugu baahato si aad dib ugu soo ceshato and the folders iyo weliba folderadii aad deleetay allows wuxuuna ku ogolaanaya you adiga convert them later inaad mar dambe dib uga soo ceshato haddii mid kaaga khaldamo ama wax kaa khaldamay ama wax delete may aad tiraahdo dib uga soo cesho okay internet explorerku finance wuxuu ku isaga waxaad ku raadinaysaa display ku soo bandhigaya information warbixino iyo waliba the websites on the internet iyo website-ada internetka ayaad iyagana ka geli doontaa insha Allah taskbar baynu markaa taskbarka ayaynu geli doonaa oo taskbarku waa line-ka hoose ee shaashada weeye line-ka hoose ee shaashada ayaa la yiraahdaa taskbar taskbarka horta theory-ga waan dhamayni taada markaas aan practical-ka bilaabayna waan wada soconaynaa taskbarku wuxuu ka muuqdaa sida halkaaba kugu qoran shaashada xaggeeda hoose ayuu ka muuqdaa wataan markii dhaweediin tusinayay taskbarka sawir ahaantiisu waa noocan ayay tahay marka sawir ahaan taskbarka laga hadlayo oo halkan waxa weeyaan waa start menu-gi start button-ki waa kalka ku qoran qaybihiisii taskbarka intaas weeye waa lead-ka yar dhooban ee computer-ka xagga dhalada xaggeeda hoose marka ku yaala kaaga muuqanaya taskbarku waa operation shaqooyinka taskbarka waxa kamid ah si uu u soo bandhigo maxay tahay tilmaamaha qalabka oo la yiraahdo tool tips la yiraahdo ama toolbar la yiraahdo si uu u soo bandhigo taariikhda iyo waliba waqtiga oo loo yaqaano to display date and time loo yaqaano si uu u soo yareeyo dhammaan applicationska furan oo waxa la yiraahdaa minimize iyo maximize iyaga gaar ayaynu ku baran doonaa mid laga weynayo mid laga yareeyo si uu ku markaa tusiyo taxanaha shaqooyinka aad hayso marka oo task list uu ku soo bandhigo dheeg isaga ka raacsiyo hadaba taskbar customization ayaa la yiraahdaa soo koobida taskbarka markaynu soo koobayno taskbarka markaynu soo koobayno right click blank space waxaad ku dhufataa meel banaan oo blank space ah ku dhufo on the desktop oo desktop-ka kamid ah waxaad ku dhufanaysaa maxay tahay mouse-ka ayaad ku dhufanaysaa mouse-ku wuxuu leeyahay right click iyo left click ayuu leeyahay mouse-ku marka left click iyo right click-ta waan kala baran doonaa insha Allah marka click on the property dabadna waxaad ku dhufataa property check ku sii property ku sii waxa ku soo baxaya baa lagu yiri box ayaa ku soo baxaya boxkaas aan isla eegi doono oo halkan ka soo bixi doona marka check ku siiso waxa ku soo bixi doona box baa ku soo bixi doona boxka ku soo baxaya ayaa mawduucyadan ayaynu kaga hadli doonaa okay marka taskbar inaad hadda ila fahmo weedo ayaa dhici karta laakiin marka wixii practical ahaan oo aad u aragto oo lagu tuso oo aad adna practical ahaan u raadiso ayaa maxay tahay aad fahmi kartaa marka practical ahaan aad ku fahmi kartaa taskbarku waa inta qaybta yar ee sawirka yar halka idinka muuqda ayaa la yiraahdaa taskbarka la yiraahdaa marka waxa lagu yiri desktop-ka meel kamid ah blank space ah ku dhufo isaga waxaad ku dhufataa left right click dhe dabadna waxaad doorataa property ka dooro check baad siinaysaa property waxa ku soo baxaya baa lagu yiri box kan yar ee halkan kaaga muuqda ayaa ku soo baxaya oo kooban dabadna box kan yar waxa ku qoran qaybtiisa halka taskbar iyo start menu ayaa ku qoran marka lag da maxay tahay taskbar xid baa lagu yiri taskbarka si aan loo markaa dhaqaajin halkaas ayaad ka xidhaysaa oo tig aad saaraysaa bartaayar ayaad tig dhag ku siinaysaa marka lama dhaqaajinayo oo ma dhaqdhaqaaqayo tani waa haddii aad macnaha baa lagu leeyahay saarto saxdan aad saarto boxkeeda haddaad saarto lama dhaqdhaqaajinayo auto hide the taskbar qari baa lagu yiri taskbarka ama waxa lagu yiri muuji taskbarka oo halkaas iyadana hadaad ku dhufato waa markaad qarinayso waxaad ku dhufanaysaa halka dabadna taskbarkiiba muuqamaayo oo badiyaaba qofku markuu inuu moobahalka laga isticmaalayo iyo waxa uu ka baqayo ayaa badiyaaba uu qariyaa oo qofka halka uu taabtaa taskbarka
ka iyadu ma inta badan daruuri maaha haddii hadhow rabto inaad soo muujisatona halka un baa tigta saaraysaa sidee halkaad ka soo tagtay waxaad ka soo tagtay desktopka blank space battery meel bannaan dabeedna right click battery dabeedna property baad ka dooratay dabeedna boxkana kuu soo baxay okay and keep the taskbar on the top other windows taskbarka waa inaad warwareejiso mar xagga sare u wareejisato mar xagga hoose u wareejisato marba aad saa doonto yeesho mar aad muujiso iyo mar aad qariso marka labadaba intaba way leeyihiin oo ay ku kala duwan yihiin intaba way leeyihiin start menu weeye kanina start menu okay start menu gana isagana aan eegno start menu is the interface element and used Microsoft Windows Sunnis Windows 90 and Windows 95 in some XP managers window start menu is the interface waa muuqaalka hore element ee kumo waa macnaha shayga koowaad ee ku muuqanaya ee user loo isticmaalo Microsoft Windows ka loo isticmaalo Sunnis ilaa iyo Windows 95 ki ilaa iyo haddadan waa la isticmaalayay waxaana loo soo isticmaalayay some XP managers kuwa ay ka mid yihiin XP ga isagu providers wuxuuna siyaasan taraa launching point for applications and tasks shaqooyin fiican iyo programo fiican oo lagu kalsoonaan karo the start menu provided customizable waa mid lagu kalsoonaan karo test list of the program oo ku taxaya programada for the user and launch iyo waliba isku mid si fiican uu userku wax ugu qabsan karo as well as si fiican list of the most recently opened document iyadoo dokumentiyada lagu soo furto and dokumentiyada lagu soo furto a way to find files si looga raadiyo fileska and get help una ka caawinayaan access waxna la gashto to the system settingska waxna waa la gashan karaa marka start menu ga laga hadlayo start operation shaqooyinka start uga uu qabto start operation ku ama shaqooyinka uu qabto waxa kamid ah to display menu in soo bandhigo display-gi macnaha uu soo bandhigo wuxuu soo bandhigay that contain program wixii program ku jiray computerka ayuu ku soo bandhigay dibadda kugu soo saaraya sidoo kale waa close and the menu in marka close the menu in la xiro programadii ku furnaa ayuu iyadana ku fududeynaya oo the close the menu waa menu-dii daaqadihii ku furnaa iyo kuwii oo dhan ayaa la xiraya and start menu customization in marka isaga lala macaamilo marka la doonayo in customization la sameeyo right click baa loo leeyahay start menu ga lagu dhufanaya waa marka la doonayo in customization choose waxa la dooranaya property ayaa la dooranaya property marka la doorto waxa laga sii dooranayaa waxa loo yaqaano property ayaa lagu dhufanaya dabeedna kadib dooro baa lagu yiri customize baa dooranaysa si aad marka u gasho baa lagu yiri soo koobida start menu ga aad u gasho marka aad u gaadho waxa kale oo aad marka adigu Soomaaliga iska akhrisanaya start menu ga ku saabsan oo waa la kala bedbedeli karaa marna start menu marna glass start baa laga dhigi karaa si la doono baadba qofku soo isticmaalo display program and start menu kadib soo bandhigo marka maxay tahay barnaamijyada start menu ga right click baad oranaysaa meesha loo yaqaano right click on the program that you want to display on start menu ka doonayso inaad soo kacsato ama isticmaasho ama uu dibadda kugu soo saaro ayaad ku dhufanaysaa oo start menu ga kamid ah ayaad ku dhufanaysaa marka from the click list click on a pinky to start menu hoos baad soo dejisan kartaa anagoo marka maxay tahay ku soo dhufanayna pinky start menu oo program xagga sare start menu ga inooga muuqday ayaan hoos soo dejisan karnaa oo aan xaggan ula soo degi karnaa arrange desktop icons in la isku habeeyo iconska ama desktopka waxa inoo yaala in la isku habeeyo oo iconada desktopka yaala ay marka si wanaagsan marka la isugu habeeyo laga shaqeeyo okay right click baynu oranaynaa intaynu mouse soo qaadno blank space meel banaan baynu ku dhufanaynaa on the desktop oo desktop kamid ah choose waxaanu dooranaynaa icons aynu dooranaynaa
choose icons baynu dooranaynaa by the sort ama visa ayaynu dooranaynaa then dabadeedna select waxaan ka sii dooranaynaa inta markaynu choose aynu taa doorano select waxaan dooranaynaa one of the mid kamida kuwan ama name-ka ama type-ka ama size-ka or ama delete modifiers-ka ayaynu dooranaynaa hidden icons in iconada desktop waxyaabaha ku yaala aad qariso ayaynu iyagana eegaynaa oo hidden iconska ayaa iyagana aynu markaa maxay tahay aynu eegi doonaa insha Allah oo desktop waxyaabaha ku yaala marmar baad rabtaa inaad qarsato badee oo aad meeshaba ka saarto iyadana waynu eegaynaa insha Allah practical aan ku arkaynaa caawa right click baadanaysa blank space meel banaan on the desktop oo desktopka kamid ah select waxaad dooranaysaa arrange ayaad dooranaysaa oo aad halkaa kasii tegaysaa icons ayaad tegaysaa then intaa ka bacdi markaad aad ku dhufato aad marka hore right click taada blank space oo aad ku dhufato haddana select arrange icons oo aad ku dhufato list choose show desktop icons ayaad ku dhufanaysaa markaad doonayso inaad soo muujiso oo aad aragto showing aad doonayso inaad qariso waxaad ku dhufanaysaa showing icons oo iyana shaxday noo soo bixi doontaa showing icons ayaa tigta ka qaadi doontaa markaas aad doonayso inaad aad qariso showing desktop icons markaad muujinayso doonayso inaad muujisana iyagana saasi leeg ayaad maxaad sameynaysaa right click baad blank space meel banaan ku dhufanay marna iyadii baa tigta laga qaadaya marna iyadii baa tigta lagu soo celinaya oo labada practical aad bay u fudud yihiin waa very simple very easy way waa wax aad u fudud computerkaaga hadaad haysato hadeer ayaad iska tijaabin kartaa oo iyadana adeegi kartaa waxaan aynu ka hadlayno si aad u fahanto marka cashku uu yar dheeraaday baan u malaynayaa waa ka raali ahaanaysan okay then intaa kadib list choose show desktop icons ayaad iyadana ku dhufanaysaa marka qaybtan halkaas ayaan ku joojinaynaa practicalka ayaynu markaa